mugdi kasta kama turjumo astaan guuldaro, waayo iftiin weliba waxa uu u baahan yahay mugdi gadaashii. dhiirigeli naftaada, qiimee naftaada, jeclow naftaada, ixtiraam naftaada. ha ka quusan guusha maalinta ay ugu dhib badan tahay ama maalintay ugu mugdiga badan tahay nolosha. ku mashquul noloshaada oo noolow qisadaada iyadaa mashquul kuugu filan. ka mashquul u fiirfiirsiga nolosha dadka kale. inaad shakhsiyaddaada ixtiraamto waxaa ka mid ah inaad ka dheeraato dadka qiimigaaga garanayn. mid ogsoonow walaalkaygiiyow, aad ha uga fikirin waxa aadan haysan si aadan u weyn waxaad haysatid. samee waxyaabaha kuugu adag si ay kuugu fududaadaan. noloshu waxay i bartay haddaan kufo allaah inuu istaajiyo, haddaan jirrado allaah inuu i caafiyo, haddaan faqiir noqdana allaah inuu hodan iga dhigo, haddaan dembaabana allaah inuu ii dembi dhaafo. ha welwelin, hana cabsan, hana tiiraanyoon. rabbigaagu waa allaah ee dembidhaaf weyddiiso. hana ka welwelin wakhtigii ku soo dhaafay ee ka faa'iidayso wakhtiga soo socda. haddii aad doonayso inaad nolol farxad leh noolaato, noloshaada ku xidh himilo iyo yool, oo ha ku xidhin shakhsiyaad iyo wax kale. si qoto dheer ugu fiirso waxyaalaha dabiiciga ah, kadibna waad fahmaysaa wax walba si wanaagsan.